السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. marka ugu horeysa waxaan jeclahay in aan salaamo guud ahaan ummadda Soomaaliyeed ee nasiibka u yeeshay inay naga daawadaan qalabka warbaahinta ee la iska arko. maanta waa June 3keeda 2011 bari subaxna hadii alla idmo caawa 6 saac markii la gaaro waa 51 guuradii xorriyadda Soomaaliyeed 1960kii iyo midowgii gobolada waqooyi iyo koonfureed. midda ugu horeysa waxaan jeclahay in aan ku bilaabo ilaahay inuu sanadkiisa uu inoo dhaliyo dawlad Soomaaliyeed ee lagu reerayo isla markaasna ummadda Soomaaliyeed qulubteeda uu isu soo xaaro masiibada ku habsatayna uu ka qaado aamin. teeda kale waxaan jeclahay in aan ummadda Soomaaliyeed ee dhageysata barnaamijkan aan ku wargaliyo in maalinka Sabtida ah ee bisha Luulyo ama July ay tahay labada lagu qaban doono jidka Kobiya Sadama 31st Street iyo Safari oo ah 4th Street xaflad aad iyo aad loo soo agaasimay oo ay soo qabanqaabiyeen ururka isbahaysiga isu taga bulshada Soomaaliyeed ee Minnesota Safari iyo hay'ado kala duwan oo iyagu kamid ah hay'adahan Minneapolis. waxyaabaha uu uga duwan yahay shirkan Beritoole ayaa wuxuu yahay markii ugu horeysay ee la keeno fardafuul baynu naqaanay geel fuul oo ilmuhu Soomaaliyeed oo waligood geel arkin ay heli doonaan fursad ay geel ku arkaan. xinigii baa u heliya qoobka ciyaarkii Afrikaanka iyo maxaan ku yiraahdaa wax kasta oo hawaayadii iyo madadaaladii iyo maaweeladii caruurta looma kala maqla hamogaanin hana maqnaanin. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dadka Soomaaliyeed ee daawanaya barnaamijkan aad iyo aad baan u salaamayaa. waxaan idin leeyahay sanad guuradii xorriyadda Soomaalida oo berrito ah ayaan idinku salaamayaa. waxaan rabaa inaan halka idinka sheego July 2deeda in dabaaldeg loo sameyn doono xaflad kontraadkii xorriyadda Soomaaliya markay midoobeen waqooyiga iyo koonfurtuna xorriyaddeedii heshay. waxaan rabaa inaan intaa ku daro qiimaha ay maalintaas leedahay iyo in looga xafladeeyo waqooyiga America. waxa weeye Soomaalidu way ku badan tahay dhulkan. waxa ka jooga ugu yaraan 70,000 baa Minnesota ka jooga. 70,000kaas oo dhan waxay aad u jecel yihiin inay la xiriiraan dadkoodii dalkoodii inay ka warhayaan iyagana faantoodu siday u yihiin ummad ama jaaliyad ishaysata. sanad walba markaa way xisaabtamaan waxay yiraahdaan maxay noo qabsamay maxaynu gaarnay xagaynu u soconnaa. markaa xisaabtanka ka bacdi waxa weeye waxay xusayaan waxay Soomaaliya ku yiqiineen caruurtooduna inay aragtay ayay rabaan. marka qiimaha ugu weyn xafladan waxa weeye caruurta Soomaaliyeed ee waddanka ku dhalatay inay ogaadaan ciday yihiin meeshay ka yimaadeen iyo sida ay hadhow ugu hiloolbi lahaayeen ama uga qaybgeli lahaayeen waddankoodii Soomaaliya. maalintaas markaa waxaa ka soo qaybgelaya dad aad u badan oo aan Soomaali ahayn. waxaa imanaya hay-adaha Maraykanka ah ee ka shaqeeya statekan ee Soomaalida u adeega. qaar badan ayaa imanaya. waxaa imanaya iyana dad kale oo iska dhaqankeena inay ogaadaan raba. waxaa kaloo imanaya dadka Soomaaliyeed oo badan baa imanaya. TV-gana waa laga soo dayn doonaa, meel kastana waa laga soo dayn doonaa. qofkii marka ay dhaaftona wuu arki doonaa. marka waxaan leeyahay dadkii barnaamijkan inoo geliyey Mogadisho Times ayaan u mahadnaqayaa. waxaan u mahadnaqayaa dadkii soo qabanqaabiyey arrintan ay ka mid yihiin gabdho Soomaaliyeed Ifraax Fardowsa iyo hay-adihii ka qayb qaatay in kharash ay ku bixiyaan ha ahaadeen kuwa aan macaash doonka ahayn ama faa'iido doonka ahayn ee waddankan Maraykanka ama ha noqdeen kuwii Soomaaliyeed. kuwa waxaa ka mid ah Safari restaurant oo isaga hortiisa lagu qabanayo gacanna ka geystay qabashadaas. waxaa jira hay-ado badan oo Soomaaliya oo iyana ka geystay shakhsiyaad badan
magacooda halka laguma soo wada koobi karo kulligood waa u mahadnaqaynaa waxaanu mar kale u mahadnaqaynaa Muqdisho Times oo barnaamijkan diyaarinaya mar kastana wax qurxan oo nidaamsan website-kooda ku muujiya Soomaalidana uga soo daaya TV-yada waa mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركو روحا محط وعلينا يا صاحبكي ولالكي إلياس فاوندر كو مقدشة تايمز مركا اللبات وحان رواينا ورقليو لما عن الإرادة الصوماليات دكان مينيسوتا اريا iyo ويسكانسن iyo نورث داكوتا ساوث داكوتا فارغو كل waxaan rabaa inaan u sheego inay ka soo qayb galaan xafladda Soomaalida maalinta Soomaaliyeed oo loo wada dhan yahay oo aan groupna aysan lahayn oo Soomaali oo dhan ay isku darsatay oo wax ka fiican midkaan uusan jirin marka waxaan rabaa inaan aan wargeliyo waxaana ma aragtay rabaa dhalinyarada inay timaado waxa kale oo maqaal igu ah in ma aragtay surprise I wish inay caruurteedii la joogi lahayn geel ya meesha imaanayo nool oo lugaynayo soo marka waxaan familiyada ku ma aragtay ku u sheegaya inay ma aragtay jaaniskaas ay ka qaataan geelaas ma aragtay socda oo caruurtoodana si ay u arkaan mid kaleeto maanta waa maalin ma aragtay maalintaas waa maalin aad uga duwan maalmihii hore oo loo dabaaldegi jiray sanad guurada soo marka waxaan qabaa midaan waa group waxa ka soo shaqeeyay ilaa 50 qofood ah oo nin walbaaba uu gooni yahay oo ma aragtay not groupism aysan ahayn marka waxaan dhihi lahaa idinkoo ma aragtay experience-gaan cusubna barta wadankeena hadda ma aragtay waa la socotaan sidoo xaaladiisu ay tahay xoogaa way soo fiicnaanaysaa midaasna ogaada oo ma aragtay midda kale tan waxa jira barnaamij ah aan ku support gareynayno as group ahaan as Minnesotanians ahaan ninkii la yiraahdo Cabdiwali oo barnaamijkiisana uu yahay 10 bisha oo convention centerka lagu sameeynayo soo marka kaasna waxa fiican inaad ka soo qayb gashaan iyadana group ma leh waxa iska leh Soomaali soo marka midaasna waxaan idin ma aragtay idinka codsanaynaa inaad timaadaan ama codsi xitaa ma waa inaad timaadaan waa you have to because aniga malihi Ilyas malaha qof kalena malaha qof walba opinionkiisa waa loo baahan yahay soo marka hadii ma aragtay wax opinion cusub ah wadaana Ilyas Muqdisho Times yaa ku soo qoraysaan then we go from there insha Allah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka hore waxaan rabaa inaan halkaan aan uga mahad celiyo walaalkay Ilyas Muqdisho Times waxyaabaha wanaagga leh oo ummadda bulshada u hayo walaal aad baa ugu mahadsantahay walaalayaal waxa farxad maanta ii leh in halkaan dhambaal hambalyo uga diro muwaadiniinta Soomaaliyeed dhammaantood meel walba ay joogaan iyadoo ay barina saaran tahay 1 Luulyo 1960 marka annaga haddaan nahay Soomaalida America especially Soomaalida Minnesota waxa ay halkaan ku diyaarinayaan maalinta Sabtiga dabaaldeg weyn oo ka dhici doona wadada Lake Street waa maalinta Sabtida bishu in labada tahay maalintaas ayaan ugu dabaaldegaynaa dabaaldegaas waxaan aad ummadda ugu boorinaa inay ka soo qayb galaan oo tusaan midnimada ka dhaxaysa dhammaan ummadda Soomaaliyeed oo ah maalin weyn oo qiimo ku leh inaan taariikhda Soomaaliya aad loo xasuusto xorriyadaas ay u dabaaldegayno 1 Luulyo dad badan ayaa ku dhintay waxaan leenahay Ilaahay u naxariisto dadkaas sanadii hore uu ka duwan yahay Soomaalidii meel walba ay joogeen way kaceen waxay ogaadeen qiimaha ay xorriyadu ku fadhiso wayna isku soo dhawaadeen waxaan Ilaahay ka baryayaa inuu calooshooda uu maaragtay wanaag tuso oo ay ka shaqeeyaan danaha guud oo ah midnimada Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan halkaan dhambaal uga diray dhammaan annaga haddaan nahay jaaliyada degan Minnesota ee Soomaali Amerikaanka waxaan ku dabaaldegaynaa maalinta Sabtida ah Lake Street qof walba Soomaaliya ka soo qayb gal dad kale oo ma taqaanaa wadanka waxyaabaha hay'adaha kala duwan oo bulshada ayaa ka soo qayb gali doona waa farxad aad u weyn inaan kala qayb galo anigoo Saadiq Warfaa maalintaas dabaaldega Soomaaliyeed waa maalin midaynaysa dhammaanteen kulli waxaan leenahay happy Somali Day wassalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh awal bismillah ilaahay baa mahad iska leh marka xigta
muqdisho media oo fursadan na siisay in maxaa la yiraahdaa aan codkeena ku gaarsiino Soomaali weynta meel kastoo ay joogaanba. Halkan waxaan rabaa inaan horta ummadda Soomaaliyeed oo dhan ka salaamo oon iraahdo waa 51 guuradii waqtigii aynu xorriyadda qaadanay oo maalin qiimo weyn u leh ummadda Soomaaliyeed sidii maxaa la yiraahdaa qof walbaba uu xusi lahaana in uu duubto oo maxaa la yiraahdaa uu ka soo qayb galo waa mid loo baahan yahay oo maaha waa waajib baan oranaya waan ka noqday loo baahan yahay waa waajib inaynu ka soo qayb galno waxa weeye ummaddu taariikh bay leedahay taariikhduna ma aha mid in ay dhimato loo baahan yahay waa taariikh qiimo weyn noogu fadhida oo aan rabno halkan aan joogno wadankan aan ku noolnahay North America qaybta ka ah in aan muujino umadnimadeena jiritaankeena taariikhaha aan leenahay iyo wixii soo raaca at the same time in aan uga faa'iideyno ubadkayaga soo koraya in ay halkaa ka ambaqaadaan arkaana in ay taariikh leeyihiin iyo wixii soo raaca marka waxa weeyaan waxaanu bareynaa inay leeyihiin isticmaar ka xoroobeen waxaan bareynaa in maxaa la yiraahdaa taariikhdaani ay si weyn ahayd inay ummadan oo isku duuban iyagoo Soomaali ah ummad isku duuban baa xorriyadan keentay marka qiimo weyn bay leedahay waxaan rabnaa tan message-kan inaan u gudbino caruurteena si ay uga faa'iideystaan maxaa la yiraahdaa waqtiyada soo socda sababtoo taariikhda badanaa ma qorno laakiin waxaan rabnaa in tan state-kan hadda aan joogno inaan ka hirgelino insha Allah maalin state-ka laftirkiisa uu aqoonsado inay ummadda Soomaaliyeed leedahay oo la yiraahdo wiigaas waa wiigii Soomaalida state-ka of Minnesota marka insha Allah taasna waan gaareynaa hadda waa iska maxaa la yiraahdaa talaabo laakiin waxaan ku boorinayaa ummadda Soomaaliyeed marka arintan oo kale la qabanayo inay gacan ka geystaan sababtoo ah dhaqaale meel uma yaalo cidna looma magacaabin Soomaali weyn bay u taalaa marka waxaan jeclaan lahaa in maxaa la yiraahdaa ardardan 4 qof oo isu xilqaantay ay Soomaali weyn oo dhan maalintaas ay xusuustaan ayna mataqaana ay yiraahdaan maalintaas waa maalintiyadii waxaan rabnaa inaan ka qayb qaadano waxaan rabnaa sida ummadaha kale oo ku nool state-kan ama maxaa la yiraahdaa United States meelihiisa kala gedisan taariikhdooda dhan waa la xusaa state-yaduna way aqoonsadeen marka waxaan jeclahay ummadda Soomaaliyeed inay ka mid noqoto ummadihii halkan u helay maxaa la yiraahdaa nasiibka in ay yimaadaan taariikhdoodana mataqaana la qoro ilaa jiilka jiil ay maxaa la yiraahdaa u noqoto dhaxal darbiyada lagu qoro statue meel looga suubiyo Soomaali ay ku qoran tahay marka waa salaamantihiin mar kale waxaan leeyahay waa farxad weyn waa 51 guuradii waa maxaa la yiraahdaa maanta waxaan jeclaan lahaa anoo wadankii jooga in aan u dabaaldego 51 guurada Soomaaliya ka soo wareegtay laakiin iima saamixin dhibka jiray awgiis laakiin Ilaahay idankii waxaan jecelnahay in aan intaan ku noqono baarlamaankiyagii aan uga dabaaldegi jirnay aan intaan tagno aan uga dabaaldegna arintan iyada ah. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.